Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaray sidaad u dhantihiinba waa idin salaamayaa meelba aad joogtaanna waxaan idin leeyahay caafimaad iyo guul iyo gobonimo ayaan idin rajeynayaa akhyaaray sida ogtihiin suuqii waa soo xirmayaayo waxaa ka hadhayba iminkani sidaan jeclahay hal weeg oo keliya ayaa ka hadhay baan u malaynayaa marka wararkiina Arsenal hadda unbuu xiise yeelanayaayo waa hadda bay wararkii wax walba maaragtay dab bay sii noqonayaan oo suuqa erayo yaa news badan ba aad u soo dhaadhacayo marka haddii aan horey ooga sii dhaco newska Arsenal iyo suuqeeda maanta iyo ciyaaryahanada ay doonayso inay soo xareyso iyo kuwa ay doonayso inay iska dirtaba Pedro Neto ayaa baryahan aad ugu wareeganayaan wararka oo maanta waxaa hadlayay coachkiisa oo Wolves coachkeeda ayaa hadlayay wuxuuna yiri waan maqlay ciyaaryahanka in Arsenal ay raadinayso hase ahaatee wax ilaa hadda offer ah ay noo soo bandhigtay ma leh wax lacaga ay noo soo bandhigtay Arsenal male oo ciyaaryahanka ay leeyihiin war intaasaan haynaa ciyaaryahanka ma naga qaadataan oo lacagta ma na siisaan oo lacagta ma ciyaaryahanka ma na siisaan oo lacagta naga qaadataan marka coachka sida ayuu sheegay wuxuu kaloo raaciyay inuu ciyaaryahan aad u fiican uu yahay kalabyadii dhamaanna maanta ay wada raadinayaan ciyaaryahan ay iyaguna sidoo kale ciyaaryahano kale ay raadinayeen sidii Gonzalo Guedes iyo Matthew hadda ay saxiixeen oo aan arkayay marka sida ayuu coachku sheegay hase ahaatee ilaa hadda Arsenal wax lacaga oo ciyaaryahanka ay u bandhigtay tiimka ayada si ay u qaataan ayaana jirin siday u egtahayna waa Arteta wuxuu raadinayaa ciyaaryahan maaragtay Premier League khibrad u leh oo markuu sidaa u imaaday hore shaqadiisa ka qabsanayo aan la oranaynin waxaas intaa ka qabay xagga ka qabay la qabsay iyo bench iyo fariisi iyo arinta ayuu ka cararayaayo wuxuu isleeyahay ciyaaryahan diyaarsan oo Premier League aad u yaqaano Premier League na yaqaano kanso oo hore shaqada kaaga sii qabto ninkan Saka la tartamo marka ciyaaryahanka xaalkiisa halka ayuu marayaa akhyaaray season-kina waxa weeyaan waa transfer window-gana waa xirmayaayo next week-gan soo socda waxaa la rajeynayaa inay wax walba ay soo gabagaboobaan sidoo kale ciyaaryahanka Yuri Tielemans ayaa isna maanta wararka waxay soo gudbinayeen inay Leicester City ay ciyaaryahanka qiimihiisa ay weli ay hoos u soo ridayso maaragtay 25 milyan bay darato istaageen oo ay lahayn warniyo hoyeysa marada idin ka dhicin intuu waqtiga suuqa idin ka xirmin idinkoo ciyaaryahano kale aan helin bal ninka 25 milyan ka dhiga iminkana waxay taagan yihiin baa layiri 20 milyan Arsenal waa la dansanayaayo Arsenalna waxay iska dhigaysaa wax kale saasa loo taabanaya markaas in wada ku haysa way sii turkaysaa markii loo daarto markii loo daaraba sida Gabriel Bikra way sii Arsenal ciyaaryahankiina dee waa la daba taagan yahayo maanta wararka hadday sax ahaayeen waxay sheegayaan in ciyaaryahanka 20 milyan way maada bal number 8 Premier League proven ah oo haddana Yuri Tielemans uu yahay nin Belgium u dhashay oo 20 milyan lagu taagan yahay sida ogtiin hadda Xhaka ayaa bariyahan wuxuu iska dhigayaa number 10 kii uu gelayaa wuxuu sameeyaa late run oo dhinaca striker uu gelayaa laakiin markii afiirisid asaga iyo difference u dhaxeeya maaragtay asaga iyo Yuri Tielemans waa ciyaaryahan maaragtay sida Gazzola Amar waa deep horey buu imaanayaa positionada laga reebay asagoo hadda sidoo hadda orodiyada Xhaka uu sameeyay positionada laga reebay ayuu taagan yahay and he is more creative waa nin creative gareenayo difaaciisuna fiican yahay iyo midfield gool badan ka xiri karo isagoo hadda sida Xhaka isku dhibin marka ciyaaryahanka isna akhyaaray warkiisa halka ayuu marayaayo Arsenal waa lagu dadansanayaa ciyaaryahanka iyaguna waxay u haystaan oo u keeni laayeen waa la yaaban yahay sidoo kale Hector Bellerin ayaa maanta iyaguna wararka waxay soo sheegeen in Barcelona ay u sheegtay ciyaaryahanka inay sugaan ilaa iyo week dambe marka ayaan jawaab ku siinayna ayay ku dhaheeno naga war sugnayahay waan ka tashanayna bal waa islu dhaw gareysay sidaad injury u gashay waxba ka yar khaldamay sidaadii hore ma tiide bal u kaadi bay leeyihiin oo niyahow aan suuqa wax kaaga barbaarno inaan ku qaadan karnay in kala ogaano sidoo kale Enzo Maitland-Niles ayaa la rajeynayaa inuu baxisna weegan gudihiisa ma fahanteen marka Pepe sidoo kale hadii waaba tagayaa asaga waaba dhamaaday arintiisa marka akhyaaray wararkeena waa naga inta caaw. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.